الرحمن الرحيم دعوياشا كيها خيال وواحد كسو دواتان مناسبة بلاران وأي دلك الصومالية كل قناة مجالة جدا أي دلك السعودية عربية عرسيدا أي كقبان عما سيدا أي ولاقة السنة ينبضان بددوينها الصوماليات كنول هي دلك الصومالية جديد سوا سيدا أي ولاقة السنة حدا مقعي واحد هذا محمد عبد السلام حاج محمد أنا وأح ganacsatada suuqa الجزيرة maanta waxaan maanta ummadda Soomaaliyeed uga hambalyeynaya maalintii 26 Juun oo ay calanka Soomaaliyeed heshay iyo 1 Luulyo oo maalintii waqooyi iyo koonfur ay isku darsantay marka sidaas darteed waxaan ummadda Soomaaliyeed uga hambalyeynaya maalinta qiimaha iyo qaayaha leh inaan u dabaaldegno ayadoo 21 sano aan la helin fursadan oo kale oo loo dabaaldegayo maalinkan aad u jeedaan horta runtii ciyaar laguma keenin dhiig badana dad badana u huray dhiig badana waa ka daatay marka waa inaan husnaa maanta calanka ummadda Soomaaliyeed shanta gees leh ayadoo yani marxalad badan loo soo maray sidii lagu heli lahaa xornimada ummadda Soomaaliyeed waa ku dhawahay telefishinka qaranka waxaan aad ugu mahadcelinayaa markaas sidoo uu soo dhaweeyo shacabka ku nool dalka Sacuudiga Carabiga wadanka gudihiisa iyo dibadiisaba anagoo ka maaragtay faa'iideysanay fursadan waxaan hambalyeeyo u direynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee jooga munaasabada qiimada leh ayaa leh oo 1 Luulyo oo maalintii Soomaalida xornimada iyo mideynta labada Soomaalida waxaan leenahay maaragtay Soomaalida inay sidii dadkii halgamaaga gacanaha isku duubmaan ay mid noqdaan sidii maaragtay mideynta iyo xoogeynta maaragtay ummadda Soomaaliyeed iyo taageerada dawladdan ay qayb libax ka qaataan waxaan ugu baaqi lahaa siyaasiyiinta meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibadaba inay ka maaragtay ku daysadaan dadkii soo halgamay oo aan cilmina ka yaraa laakiin wadananimo ay ka buuxday in ayagana ay wadanimadooda maaragtay muujiyaan ay taageeraan gacanaha isku dhagaan ay Soomaalida midnimadeedii hore ay ku soo celiyaan ay maaragtay u istaagaan waxaa kaloo aan ayagana munaasabadan ugu faa'iideysanayaan u dhigay dhammaan shacabweynaha dalka Sacuudiga ku nool in munaasabadaas ugu hambalyeynaya meel kasta ay joogaan magaalooyin kala gedisan Riyaad ugu horeysa caasimadda ayagana waxaan leeyahay hambalyo sida aad markasta u muujiseen wadanimadin inaad qayb liba sidiina aad kasii xoojisanaayaan leh hore anigoo ah Cali Maxamed Maxamuud waxaan ka mid ahay dadka ku nool qurbaha gaar ahaan dalka Sacuudiga Carabiga waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ku nooshahay caalamka munaasabada aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed qaali ku ah gaar ahaan 1 Luulyo xornimadii midowgii labada gobol intaba hambalyo ayaan leeyahay fursadda qaaliga ah telefishinka qaranka ayaa aad iyo aad fursadan qaaliga ah anaga u mahad celinayno magacayga waxaa la yiraahdaa Gacal Maxamed Gacal aniga oo jooga dalka Sacuudiga Carabiga gaar ahaan Jidda waxaan hambalyo u dirayaa ummadda Soomaaliyeed maalinta xornimada Soomaaliya oo ah 1 Luulyo ayna midoobeen koonfurta iyo waqooyiga hambalyo ayaan u dirayaa ummadda Soomaaliyeed anagoo ah jaaliyada ku nool Sacuudiga Carabiga toddobaadka xorriyadda Soomaaliyeed oo ah maalin ummadda Soomaaliyeed si aad iyo aad ugu weyn oo ah maalin qof kasta oo damiir leh haday xasuusato ay dhigiisa oo aad u shaqeynayo ambasa ay micnaha jirracyo aad ay ku kacayso sababta oo keenayso ay tahay maalintii xornimada aan qaadanay ee aan naqanay ummad Soomaaliyeed oo laga yaqaano adduunyada oo calan leh marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed hambalyo waxaan halkaan hadana ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Saacid iyo gudoomiyaha baarlamaanka Jawaahiri waxaan leeyahay sida aad wax ku wadiin waa si aan aad ugu qanacsanahay biidnillaahi kariim
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحالي دكتور شعيب يوسف حاجي وكشغي مقالة الرياض وحان هالا كان كالسلامية مدحوينها جمهورية فدرال كاي صوماليا رئيس الوزراء قدوميها برلمانكا golaha shacbiga golaha wasiirada dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan wasaaradda warfaafinta iyo telefishinka qaranka sanad guraaga dabaaldega kowda luulyo aniga u rajaynayaa in ummadda Soomaaliyeed sanadkiisa ay ku gaaraan barwaaqo iyo nabadgelyo ilaahay dhibka hayana inuu ka qaado muxuu ahaa dalkeenana nabad nooga dhigo dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa muxuu ahaa barwaaqo aniga oo maaragtay ugu hambalyeynaya gaar ahaan muxuu ahaa jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool magaaladan Riyadh iyo Jeddah iyo Dammam iyo magaalooyinka kale ee Saudi Arabia. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. waxaan anigoo ah Luul Axmed Faarax oo ku magac dheer Luul Kiimiko waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba oo joogto gaar ahaan madaxweynaha Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaaraha Mudane Saacid iyo marwooyinkooda dhammaan xildhibaanada Soomaaliyeed gudoomiyaha baarlamaanka ayaan salaamayaa Professor Jawaari dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba oo joogto oo hambalyeynaya anagoo la qaybsanayna hambalyada munaasabadaha waaweyn 26 Juun oo ah maalintii ciidda Soomaaliyeed laga taagay calan Soomaaliyeed iyo maalinta 1 Juulaay ama 1 Luulyo oo ah maalintii midowga Soomaaliyeed oo ay xorowday koonfurna ahna maalintii ay midoobeen Soomaalida ayaan ugu hambalyeynaya hambalyo aad iyo aad u weyn maanta oo ah maalin aan dawlad yeelanay kadib muddo 23 sano ah hambalyo kale ayaan ummadda u soo gudbinayaa oo ah dawladnimadeena iyo qarannimadeena oo soo noqotay alxamdulillah magacaygu waa Maxamed Sheekh Cabdullaahi Xamza waxaan ka mid ahay jaaliyada degan magaalada Riyadh marka anagoo ka faa'iideysanayna munaasabadan kowda luulyo waxaan hambalyo kalilaan u direynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo ugu horeeya madaxweynaheena Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed Professor Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha baarlamaanka Professor Jawaari iyo Prime Minister keena Mr. Saacid marka ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan leenahay ciid wanaagsan kowda luulyo iyo 26 Juun ba anagoo isku dareen waxaan leenahay hambalyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا من سلامي دمان دولنا الصومالية
meel kasta ay ku nool yihiin waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair anigoo ah Saciid Cali Shidane oo ku nool dalka Sacuudi Carabiya waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan maanta ku dululiyo markaan eego ama dib u fiiriyo wuxuu maskaxdayda ay ku soo dhacdaa farxad badan sidii xubnimadii maalinta la qaatay iyo shucuurteedii wallahi ma sha Allah yani farxadeeda aad ay u macdahay wallahi waxaan ku tilmaamaa taas waa mid aan jaanis aan u helay waxaan ku tilmaamaa fursad aad u fiican oo soo martay waxaana khaasatan aan salaamaha gaar ahaan TV-ga qaranka ee dowladda Soomaaliya iyo wariyahayga Cabdulqaadir waxaan idin leeyahay dabcan way jirtay waxaa jiro mansayar aan ugu talagalay maalinta kooda luuli bismillahi raxmaani raxiim maansada yar waxaan ku bilaabayaa sintan haddaan tiriyo tixda maansada ama tusmeer ka tilmaamo taladeena talo waa tiira bitaana kama tegine taah nin gabay tabar uma taale tiiraayin iyo ciid waxaa tiigsada ruux talwaaye tabar baa ay ugu dambeyso Soomaali intay taagan tahay tabay tixdoo tiri jiray tamacadee talo miyaan ka tagnaa taariikhda dalkeena toddobaatameeyadii tayaan lahayn iyo tiir dhaxaade tacab aa jiray iyo tanaade tiyaatarkoo lagu tamashileeyo tacliinta duruustoo la tabinaayo iyo taran ciidan oo hoo tababaran tag iyo hood aanan tureene waatay tababada ka tobiye tabay tabtii SYL kamaana tegin xaawad taako iyo halyeegii dhagax tuure tixanaha tixdeedana kama tirna sayidkee talow miyaan ka tagnaa taariikhda dalkeena tashigoo laga tallaabo faraaruqoo la taageero dadnimadoo la tuuro toobadoo laga tago tallaahiye waxay taawataa tacsi iyo hooyo asay la tiiceeso oday tukubay iyo danyar lagu tumanaayo da'yar istoogato aan la isku tureene iyo tuuga beelaysan tarasata iyo tunka ku sita anaa taabsaday ka tegi maayara ku tirinaayo iyo tiro tahriibta toobada lagu tabaayo tribula iyo talyaani xeray ka ticis baahay kula daaxayso dadoo matimir baa matiin baa talamaya tiraakii ololayaa tagtay yaana la tixraacin talada tiirkii wadaniyeeda taga oo taageera calankii buluugnaay saddex ruux oo isku tayaa taladoodu wacan tahay tacliintooduna siman tahay tirabtooduna kala taag ahayn tii allay ka timide turkiguna waa kow taageerahe oo tuma durbaanka Soomaaliya xabtoorana fanaaniinta dalkoo dhan yaa u tuma ciyaartoo u diyaasha tiyaatarka iyo talantaaliga heesahoo ka tafatira suugaanta tubaacow mataar baa ma taleefana dilaya matixaan tirnaya maasadaanta aleyda allah amaanka iyo ku talo ku tidcaye talada tiirkii wadaniineeda taaga oo taageer calankii buluugnaay tabay tawfiiqdii dalkayga talo miyaan ka tagnaa taariikhda dalkeena maasaas rabashasaan ugu baxayaa waxaan idin leeyahay kullu caam wa antum bikhair Soomaali inta afka Soomaali ku hadasho meel walba ay joogto waxaan leeyahay ciid wanaagsan farxad iyo bari ku caawiyay والله أبدأ ما سنتهاي وحافر حد منها إن عاوة كدي سعودي كود اللولية أنا بمرعي قليلا تالي الحرسكية دي أهنا جالية كنا المجالة الرياض وضعك السعودية العربية وحافظ لي إن أي كدي وانت أي لبعتكي سنة الله سعود عفي فرحد ما أنت أنا قبنا همي إنه مجرى إن شاء الله وهنغضب كي تشوشي برواقية من الدلاء وحنا رجينا إن ما أنت دولة الجرتاي نغطي دولة من الدشاه waxaan kale oo habaliyo u diray dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan jaaliyadda Sacuudi Carabiya magaalada Riyaad waxaan u rajeynayaa wadankan in Ilaahay ka dhigo mid khayr iyo barwaaqo iyo nabad iyo bashbash lagu helo insha Allah telefishinka qaranka waa telefishinka ummadda Soomaaliyeed ay aad ugu faraxsan tahay isla markaasna barnaamijyada iyo barnaamijyada ka baxa uu yahay mid dawli ah aad bayna ugu mahadsan yihiin shaqaalaha iyo xiriiriyaalka iyo wasaaradda warfaafinta kulli waxaa naga dhexay xiriir aad u fiican gaar ahaan marka la fiiriyo yani annaga xiriirkeena waxaa qayb libax ka qaatay gudoomiyaha jaaliyadda Riyaad Injineer Abuukar runtiina telefishinka aad baan ula soconaa oo waxa weeyaan hadda maba fiirsanaba telefishinada kale waxaan fiirsanaa Somali National TV Yagu xorobe kalad weyn
والله وادوا السلام عليكم aad bay shucuurtayda u kacsan tahay oo muxuu ahay taan u kacsannahay muxuu ahay soo insha Allah waxaan jeclahay Soomaali meel kasta joogto maanta inay kowda luuliya ay wada faraxsan yihiin marka waxaan hambaliyo aan u dirahayaa oo salaam qaali aan u dirahayaa madaxdeena Soomaaliyeed madaxweynaheena ra'iisul wasaaraheena ra'iisul baarlamaanka gudoomiyaha kalsan wasiirka arrimaha dibadda Fawsiyo kulli waan salaamayaa Soomaali meel kasta joogto waan salaamayaa in alla inta af Soomaaliga ku hadasho waxaan leeyahayna awguuriya hambaliya baan leeyahay wax alla wixii magacayga iyo muuqayga yaqaan waan salaamayaa wallahi telefishinkeenu waa telefishin qaaliya oon maanta inta halkan lagu soo koobi karin waxa uu noo qabanayo iyo wuxuu wadanka u qabtay waxa kaliya oo cadeynaya inaanu nahay qaran buuxa waa telefishinka qaranka insha Allah ha jiro oo ha joogo wallahi waa heer sare si fiican baan wada shaqeynaa oo telefishinkuna noola shaqeeya saacadaan u baahano habeenkaan u baahano maalinkaan u baahano daqiiqadaan u baahano waa telefishinka kaliya toos noola shaqeeya ma sha Allah tabarakallah baan leeyahay waxaan gabdhaha dumarka Soomaaliyeed baan u digahayaa duufaantiina qaaday dunigii horena helay dadkeenu ku dhamaaday baan nooga digahayaa doomaha wada dagaya meydkeena dibadda yaal idii ay duugaynin baan nooga digahayaa dibadda ku waadee dal shisheeye lagu xirxiro idii u doodaynin baan nooga digahayaa dumarka jeerankii ka go'ayo jirku isku dhagay Soomaali joocana joornaalka loogu qoray shabaanu ma iman raggeena kabka ku dhigay inaan dib loo jeeso waa inaad u joogtataan jahaad culus weeye waa inaan jireecna gelin ama santahay walaalle walaal magacaygu waa Leila Axmed Qayliye ku nool boqortooyada dalka Sacuudi Carabiya ee Riyaad waxaan rabaa inaan hambaliyo buuxiyo aan u diro dadka shacabkayga Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inta afka Soomaaliga ku hadasha waxaan leeyahay hambaliyo kooda munaasabada kooda luuliyo waxaan rabaa inaan dhaho maxaan ku sheegaa dawladeena sharafta leh hambaliyadaas munaasabadan alshaankeeda u marinayo salaan diiran magaciigu waa xasan axmed weydiin oo magac dheer xasdaan oo ku nool dalka Sacuudi Carabiya waxaa halkan u hambaleynayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ku nooshahay toddobaadka xorriyadda oo ah 26 Juun iyo kooda luuliyo israaciil gobolada waqooyi koonfur waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin hambaliyo toddobaadka xorriyadda ama ugu hambaleynayaa TV qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa jidda أنا سلامي أقول سلام على مير بيت الموسى والله فرد وين أنا بنحيا واي وعرف اللي حلو هتجي جون شيء لو عشان مجال المنطقة عاصمة الصومالية بينكي وملحمين الصومالية ومن الصومالية كذا كان بسيط أنا فيلا يقول إنه لي كسير في عنادهم تو لما تيجي جون ولا يروح سوق مقدسه وعلى سبع صاحبي الصومالي مير بيكونوا لي همبريو السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لينا أحمد اسمه حسن. أنا magacayga waa Maxamed Ibrahim Camar waxaan ka soo hadlayaa magaalada dalka Sacuudi Carabiya gaar ahaan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay guushii Ilaahay na siiyay lixdameeyadii waxaan ugu hambaliyanayaa awalan madaxweynaheena hambaliyo ayaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan waan u hambaliyanayaa magacayga hadii aan ku bilaabo Nasra Abuukar Xuseen oo joogta Sacuudi Carabiya gaar ahaan gobolka Badar waxaan halkan hambaliyo ugu dirayaa ummadda Soomaaliyeed meel alaali meeshay joogto maalintii ugu horeysay ee ciidda Soomaaliyeed laga taago calan Soomaaliyeed 26 Juun iyo 1 Luulyo waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel alaali meeshay joogaan sanadkan sanadkiisa ku gaara basbas iyo baraare waa maalin aad iyo aad noogu weyn waa maalintii ugu horeysay calan laga taago wadanka ciidda Soomaaliya si fiican ayaa ugu dabaltayna waa maalin nagu weyn oo maalin qiimeeyna wallahi waan ku faraxsanahay fursadda ay siiyay telefishinkeena qaranka Soomaaliya Rahmaanir Rahiim anigu ah Ismaaciil Maxamuud Afrax Ismaaciil Isteela kuna nool dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya kamid ah dhalinyarada jaaliyada kuna nool dalka boqortooyada waxaana ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyaan meel walba ay joogaan 1 Luulyo iyo 26 Juun xornimada Soomaaliya calanka Soomaaliya laga taagay caradeena waxaana leeyahay ummadda Soomaaliyeed hambaliyo
حماسة أنا سو كل كرين آدي يعني وقتي أنا نهني ومد يعني أو ودن يعني أو جرينا نهني أيام غير مركب كل لولي مغلو أو أنا ومد جرت نهني أيام حسوسنا مر ولا بو وواي وحياة لتاريخ لنا ومركب بميستها عن كحرون واي ساعة وحالي هاي من ورياشة إن TV قارن كشقالي سلن يعني وحين تلفزيون قارن كصوماليات وحالي هاي حبليو آدي أمهاتين جاليد يعني أن دكتور ذلك السعودي عربي استوديسا آدي أمهاتين اللي يرد أن ورثنا قاعد يسوع درين كنا يعني إنها كشجنا نقدوا يعني آدي أمهاتين. بسم الله الرحمن الرحيم أنا وإيه حبيبي محمد دكتور جاليد السعودي عربية وهم بلي ودرايا كود اللولي مالتي كوفري وهوي إسرائيل وحن ليا هم بلي مبروك عمر ديرو عافمال الله نقول كارسي وسنة كان سنة كيسة دولة الصوماليات iyo shacbiga Soomaaliyeed waxa uu rajaynayaa cimri dheer oo caafimaad leh sanadkan sanadkiisa barwaaqo ma sha Allah tabarakallah xasaasiga aad u dheeryahay maadaama Soomaaliya ay hesho dawlad taame oo laga aqoonsan yahay adduunka oo dawladda iyo dalkii iyo ummadda israacday waxa uu leeyahay guul aniga ayaa Cabdiraxmaan aad ayaan u faraxsanahay manaan sidaan oo ku dayan salaam Ibrahim Islaaw ayaa liidaha waxaan ku noolahay Sacuudi Carabi والله درين كي قاعد يادو يوكعسيني لأنه ودن كانوا محيط تعرضين هو يلا قلت على عالم الصومالي ما عالم كبوري زي من ماذا خاطين وحالا يدعمونا ويكون لسان وحن جوا مختوي السعود العربية وعنهم طريقة سؤوتريا قوزي والله فرحات آدي أيان كريمية ومات الصوماليين وحقوا طاقيا نوات إيه برواقو إيه بشوش نادو الجوان إلهي إيه وطن كان موجود وطن ونكسن أمر والبلوغين نولادو نوات ونكسن وراشتين الله إن شاء الله إله كسك برينا عليكم ورحمة الله وبركاته مجد دحمان عبد الله علو وكما حدير شاكي وجوه بقرطية السعودية العربية مجالة جدا وعان كان بليبو دريا من الصوماليات من الجيران تواد الحردة صوماليا وكوباغان كود لولي يبسراحي صومالي ولد وقوي يكون فرقا واحد بن عصورة سوين هذا الدبال دقيا واي ومرك وريس عن خير أو خير قال حاول باقي لما الصوماليات من دبي aniga waxaa la dhahaa xasan maxamed cali waxaan joogaa wadanka Canada gobolka Ontario degmada Niagara Falls waxaan fursadan qaaliga ah ee telefishinka qaranka iyo Fariya Cabdulqaadir aad iyo aad u mahadsantahay fursad qaali baan siiyay waxaan meeshaan jeclahay inaan ka cabiro kowda luulyo qiimo weyn bay noo leedahay waa maalintii ay labada gobol isku darsadeen waa maalintii oo calan Soomaaliya laga taagay wadanka Soomaaliya wadankayaga waa maalintii oo xornimada aan qaadanay oo ficlan aan ka baxnay gumaysigii maalin qiimo aad iyo aad u weyn weeye waa maalin dad badan ay kusoo geeriyooday calankaas buluuga oo shanta xidig leh dad badan ay kusoo geeriyoodeen soo rafaadeen sidii calankaas waxaana leyn waana xalana waxaan ilaahay ka baryaynaa in aygeena ilaahay khayr noogu dhigo oo ilaahay nabadna noo keeno oo calankeenana weligiisna kor oo u saarnaado sidaas iyo waxaan kugu mahadcelinayaa iyadana lala soo xiriirto oo ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa calankan buluuga oo shanta geesood leh dhiig badanaa usoo daatay dad badan baa god u galay waxaan leeyahay calankaas hala xafido أنا وقبل الله بسم الله الرحمن الرحيم وحي أنيد وين يقول هذا ما أنت ومناسبة وسنة كي عين حروني وكود اللوليو يو ما أنت أي مذوبين قبل هذا وقوي يو كوفرته مركا مناسبة دان هذا أي نوجو أنت ما أنت حرية صومالي هذا أي مسكح إنه قيمة وين يقول هذا طبعا وحن دريما صومالي نمذا قيمة أي لهذا شرفت أي لهذا هي أيان دريما يولي بإن أن جعلنا ودن كأني إن كلها بنا نقول نبذا دبال دق ولي وحن جعلناها إن نلقى هذا النقطة كرير مقدش Somalidu
وبركاته. بعد السلام وحكلو سلام على صومالي يوردن مناسبة كود لوليو waxaan u hambaleynayaa Soomaali meel kasta oo joogto dibadda iyo dalkoodan in salaan gaar ah gaarsiinaya qaab wanaagsan iyo reereen iyo sharaf anigoo ka soo tagay wadanka sideedaba waqti siyaad baro joog Allah u naxariistay aad ay u mahadsan yihiin telefishinka aad ugu mahadcelinayaa telefishinka qaranka waxaan ugu baaqayaa biidnillah kariim in ilaahay dad wanaagsan ka dhigo qulubtoodana u sameeyo ay waxaan dareemayaa reereen iyo wanaag iyo sharaf badan aan lahayn hadda waxaan ku rajaynayaa in ilaahay sharafteena iyo nabadeena iyo khayrkeena badna in ilaahay noo soo celiyo oo nabad badan ilaahay noo dhaliyo biidnillah kariim ilaahana ka rajaynayna kan sanaan qiimo iyo qaayb badan uga dirayaa madaxweyne حسن الشيخ محمود وحان كلو سلام رئيس الوزراء دكتور عبدي فارح بسم الله الرحمن الرحيم وحان هلكان وحان بليينايا anigoo magacayga Faadimo Ismaan Muudey yahay oo joogo Sacuudi mamlaka Sacuudi Carabiya waxaan gaar ahaan Badr waxaan baliyaynayaa sanad guuradii konton iyo saddex oo labada gobol isku darsoomeen koonfur iyo waqooyi aan u hambali kooga luulyo ayaan u hambaliyaynayaa waana ku faraxsanahay saddex oo isii waa ku mahadsan yahay ilaahay koraha ka dhiga telefishinka qaranka waana ku mahadsan yahay عبد الرحيم عبد الحسين قلبي وحان كسر الله يا دلك السعودية العربية قاران مجال جدة والله مناسبة كود لولي آد فرحات آديات أيان دريمية وحان وهم بينا يا ددوينا صومالية ميل والبو يجوين أيان وهم بلينا يا والله ددوينا صومالية يكونوا مجال جدة آديات أي وفرحسيين كود لولي حماسة دوين بدن أيان كمغط والله وحان ومدعينا يا تلفزيون قرن كجمهورية الصومالية أيان مدعينا يا أيضا نصور دجلسي سلامها فرصة غالية. أنا صالح معلن أحمد دين ليرة ومناسبة كود لولي وحان أركا مناسبة آد وفي عن أونا محيط والله آد ومهسينها قاعدة قرنك الصومالية آد بان وضاونا آد بان وطاقر صنع آد وفرحسين أنا الصفية علي عبد الله إسلام وكنا نقول يعني سعودي عربية ولا آد وفرحسين وحارب لها ودن كاين إلى النوط يقير إبر يعني ودن قربات إلى كتك وفرحسين ودن كاين يعني ملها والله ولا أبو وحالي جويري شو تشريفة ليرة waxaan joogaa Sacuudi Carabiya suuqa Soomaalida saxeed Mool dareenkayga aad u kacsan yahay farxad aad aan la koobi karin hayso kowda luulyo isbuucaan oo dhan aan macnaha ku faraxsanahay maalinta xornimada waqooyi xornimada Jabuuti haddana caawa oo ay tahay maxaa la yiraahdaa maalinta koonfur ay heshay maxaa la yiraahdaa kowda luulyo dareenkayga aad u kacsan yahay waana u hambalyeynaa Soomaalida meel allaala meesha ay adduunka ka joogaan waxaan leeyahay hambali wallahi fursad qaali ah oo arkaa telefishinka qarankana waa ugu hambalyeynayaa howlaha ay Soomaalida ay u hayaan insha Allah taala waxaan ilaahay uga baryaynaa in ay horumar intaan ka weyn ay gaaraan sanadkiisa Soomaaliyeed dal iyo dibad inta joogtaba waxaan halkan uga hambaleeyahay ummadda Soomaaliyeed dhamaanteen iyo nafteedaba ummadda Soomaaliyeed oo maalinkii calanka saaratay ee ummadda yani calanka Soomaaliya oo noo dhashay baadka xorriyadda Soomaaliya alxamdulillah ilaaha mahad iskale waxaan kaloo halkan ka salaamayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ku xasuustaa dareen oo kacsan bashbash iyo barwaaqo loo yaqaan maalinta saas oo kaleenta oo calankeena la saaray hadii la soo xasuusto dareenkeena aad u kacsan yahay waxaa ugu baaqila ummadda Soomaaliyeed mabruuq ayaan leeyahay caawo kale waa caawadi aan alxamdulillah nabadda noo dhalatay oo xornimadeena Soomaaliya calankana loo saaray marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed markasta ay joogtaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala khayr iyo barwaaqo bashbaaq Allah nagu xeeyo